قال جعفر ابن محمد وحي لشيخ الليلاد عجبت وحان لي يا بيبوري لمن بلي بأربع كيف يغفل عن أربع نين أفر الرمود لغو امتحامي أفر الرمود سيئوه المامي كرا أفر الرمود هدي لغو امتحامه oo ay kugu dhacaan waxa la doonayaa afarta arrimood inaad hilmaamin oo kale man buliya ninkii lagu imtixaamo bil qammi murug kayfa la yaqulu sidabuna u oranaynin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin murug markay ku qabato aayada ku wardi la ilaha la ma'buda bihaqqin illa anta du'a yunus bin mata soma ismu a'lamka lagu sheegay sida xadiida ku soo aroortay ilaahay buu ku bariyay wahwa fi badni al-hut asagoo kalluunka calooshiisa ku jira saddex mugdi buu ku jiray dulmatul layl iyo dulmatul bahri iyo dulmatul badni saddexda mugdi buu ku jiray saddexda mugdi dhaxdooda yaani habeenka mugdigiisi iyo biyihi badda iyo kalluunka calooshiisa asagoo ku sii jiro saddexda mugdi dhaxdooda ka dhawaaqay la ilaha illa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro illa anta adiga mooyaan subhanaka tanzihan baalaka ku sugnaaday inni anigu kuntu min adh-dhalimin ilaahay waxaan kamid ahay kuwa dhaalimiinta ah amar la'aan buu nabi Yunus baxay Soomaa qoonkiisi markay rumeey waayeen ayuu xanaaqay cadaab baa idin imaanaya buu yiri cadaabkii baa yar daahay oo xanaaqay doon buu iska raacay doontuna dabeecadeedu waxay ahayd waqtiga ay nin adoon sayidkiisi ka soo dhuuntay haduu soo fuulo ma soconayso way ciiraysaa doontii markii la fuulay inbay waxay bilowday warkaas war maxaan ugu dhacay nagu jiro aan isbaarnaale aan qori ridano nin adoonkiisi sayidkiisi ka soo dhuuntay oo aan la soo idmin baa nagu jiree aan qori ridano markii la qurcaystay oo nabiga ku dhacay sayid ilaahay buu amarkiisa kuma soo bixin markaa man dhaqaaqin kuma soo dhaqaaqin way waa marka waxa la isku raacay nin alla ninkii qorigu ku dhaco oo idan la'aan soo fuulay doonta waa in badda lagu tuuro bas hor iyo daba baa la qabtay oo baddi waa lagu tuuray de markii ma kalluunka ilaahay ugu tala galay oo sida afka u kala hayo qalam waa laqay markaas oo aayadan halkaanu markaa wardigaanu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin marka nin alla ninkii murugtiisa ilaahay baa fayday Soomaa kalluunkii waa laga soo tuuray badda xeebteeda lagu soo riday halkii uu xoogaa yaani ku noolaaday markii kadibna ummadiisa mar labaad uu ku noqday marka kadib waxa rumaysay 100,000 oo yaziidun baa ilaahay leey 100,000 iyo kasii badan baa raacday oo ummadii weyn noqotay marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waa kii markii la hadlay uu fasbir kama sabara ulul azmi wala takun ka saaxib al-hut baa ilaahay sida dadka ulul azmiga rasuushan ulul azmiga la yiraahday rasuusha ugu fadli badan say u sabreen oo kala u sabar wala takun ka saaxib al-hut ninkii malayga u saaxiibka ah kala ha noqon Yunus bin Mata ha degdegin baa leey marka waayahay marka nin alla ninkii murug ay ku dhacdo see u hilmaami karaa buu leeyahay Sheekh Maxamed bin yaani Jacfar bin Maxamed la yiraahdo aayadan way wallahu ta'ala yaqul ilaahi baa wuxuu leeyahay fastajabna lahu wa najaynaahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin marka aayada markaad akhriso ballanqaadka dambe dib lagu ballanqaaday lagu yabo hay fiiri markay murug ku qabatabo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sida dheh haylay markaas waxaad rajaynaysaa oo sugaysaa ballanqaadka ilaahay baa wuxuu yiri fastajabna lahu nabi Yunus waan ajiibnay wanajaynaahu mugdigi iyo meesha khatartayda ku jiray baan ka badbaadinay min al-ghammi murugti baan ka badbaadinay wakadalika nunji al-mu'minin mu'miniinta rasaam baan u badbaadinayna markay dhibaato qabato ilaahay leey marka haday murug ku qabato seed u hilmaami kartaa aayadan ha hilmaamin buu kulay waman khaafa shay'an shay ninki ka cabsado cabsi markay ku qabato meel khatar aad gashana كيف لا يقول سيدابو سو أرنين أو المامية حسبنا الله ونعم الوكيل سيدا إنا ترادو حسبنا كافي قانو الله إلهي ويه ونعم الوكيل مثل تلسارتنا سوهم باو نعم بدا والله تعالى يقول إلهي باو حليه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فإلهي لي يا مركا النبي يا أصحابتي عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي النبي يا أصحابتي ayagoo yar markii cadawgii lagu cabsi galiyay oo ayagoo farabadan oo yaani waxayna tabar u haynin baa idinku soo duulay markii leeyid maxay yiraahdeen fa yaani hasbuna allah wa ni'mal wakiil hasbuna allah kaafiga anagu allah ilaahi wa ni'mal wakiil marka ilaahi wuxuu noo sheegay fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadl يعني وان دغالكي بدر نعمه waxay la soo gadeemeen nicmo ilaahay xaqiisa iyo fadli lam yamsasum suu wax dhiba ma taabanin ilaahay qalabadii buu siiyay guushi buu siiyay
waxay la soo hoydeen yacni guul iyo fadli iyo ziyaado waay marka mar alla markaad cabsato aayaddaas ha hilmaamin xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaa dhowe marxaban marka waxaa la rabaa qofka mu'minkaa markii uu aayadda maqlo ama xadiidka uu maqlo inuu ku camal falo oo weliba uu tajribo ka qaadaa la doonay culimadii hore waxay dhan jireen markii arrintaan oo kale shaygaasoo la sheego qad jarabnaahu waan imtixaamnay oo yacni fa kaana lahu sidaa un baan ku aragnay sidii aayadee marka inaad imtixaantaan la doonaya waxa inaad ku kalsoonaato camalfalka diinta waxaa la rabaa inaad tidhaahdo waxaan soo ballanqaad ilaahay maaha soo lama sheegin bal samee waman mukira bihi nin alla ninkii la khayaano oo dhagar iyo khayaano iyo xeelad loo sameeyana yaquulu waa inuu yidhaahdo see u hilmaamaya laa yaquulu waa inu yani kayfa laa yaquulu sidee buun u odhanaynin wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad haddii lagu khayaamo ama xeelad iyo makri lagu sameeyo iyadoo yani lagu khayaanayna aad aragto wa ufawidu amrii amarkayga waxaan u bandhigayaa ila allah iska dheh ina allaha basiirun bilcibaad ilaahay baa addoommaha arkaya ninka wax maleegayo ninka wanaagga qalbigiisa uu ku jiro ilaahay baa arkaya moogtahay maamulka ilaahay maana soconayo kan addoon weeye yani makrigiisu waxba ma tarayo wallahu tacaala yaquul ilaahay wuxuu leeyahay fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu fawaqaahu allah ilaahay baa ilaaliyo ka ilaaliyey sayi'aati maa makaruu waxay makrayeen oo maleegayeen oo guntayeen xumaantii ilaahay baa ka ilaaliyey waman raqaba fii shayin shay ninkii jeclaadana kayfa laa yaquulu sidee buusa u odhanaynin maa shaa allahu laa quwata ila billah maa shaa allah ilaahay wuxuu doono yakuunu kaana u ahaadaa laa quwata awood ma jirto ila billah ilaahay unbaa awood iskale wallahu tacaala yaquul facasaa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatik afartaa waa inuusan iloobin see u hilmaami karaa ayuu leeyahay sheekh see u hilmaami kara waxaan ku dhaqanno oon maalnaa ilaahayna siiyey diinteenna inaan maalnaa la doonayo wax walboo kanzi iyo wax walboo khayraada diintay ku jirtaa marka wax alla waxaa doontaba diinta u adeegso waad ka helaysaa mudabbir alkhalaa'iqi ajmaciin mudabbir alkhalaa'iqi khalaa'iqda iyo makhluuqaaga allihii